dumarka iyo waxyaabaha ku riixa furiinka. muuqaalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabaha dumarka ku sababa furiinka. maalin walba waxaa burburo qoysas. waxaan maqalnaa hiblaayo waa la furay, hibil naagti wuu furay. maxay tahay sababta dumarka ku riixda in la furo, ama sababta keeni karta in dumarka la furo maxay tahay maalin walba? maxay guryo badan oo Soomaaliyeed u burburaan habeen walba iyo maalin walba? waxaa suuragal ah in maalin gudaheeda intaasoo kun oo guri ama intaasoo kun oo qoys ay burburaan ama ay kala tagaan. waxaynu muuqaalkani ku ogaan doonaa marka maxay tahay sababta dumarka ku dhalisa ama ku riixda furiinka. qodobka ugu horeeya ee dumarka ku sababa ama ku riixa furiinka waxay tahay ragga oo ka gaabiya qancinta xaaskooda marka ay timaado arrimaha caadiga ee guriga. rag badan oo Soomaaliyeed waxa ay sameeyaan marka ay timaado hawsha guriga ama waxyaabaha guriga laga qabanayo ama hawsha caadiga ee guriga taala in ay ka gaabiyaan in xaaskooda ay ku qanciyaan wax walba ay u baahan tahay ama ay siiyaan, taas oo ugu dambeyn sababta in gurigaasi uu burburo. haddii ay dhici lahayd in ragga qaarkood ay sameeyaan ama isku dayaan xaasaskooda inay qanciyaan, waxaa meesha ka bixi lahaa furiinka tirada badan. qodobka ugu horeeya waa qodobkaas. qodobka labaad, ragga oo iska indhatira in ay hawsha la qabtaan dumarkooda kuna fiirsada daalka iyo dhibaatada. rag badan ayaa dhibta iyo xanuunka ku fiirsada dumarka marka hawsha guriga la qabanayo iyo howlaha kaleba, taas oo ugu dambeyn dumarka ku sababta xanuunka iyo dhibka intay u dulqaadan waayeen inay go'aansadaan ama inay ninka ka codsadaan inuu furo. qodobka saddexaad, ragga oo iska dhaadhiciya in gabadha tahay addoon ama shaqaale ay iyaga leeyihiin, taas oo ugu dambeyn ku sababta in gurigaasi uu burburo. qofka dumarka ee aad qabto ama xaaska ku ah waa bini'aadam adigoo kale, waa inaad u danqataa sida adiga aad isugu danqan lahayd oo kale. waa inaad u naxariisataa sida aad ugu naxariisan lahayd hooyadaada, walaashaada ama qof walbo adiga aad jecesha inaad u naxariisato. marka waa inaad la danqataa lana qabataa hawsha guriga taalo. haddii ay dhici weyso taas oo ay raggu iska dhaadhiciyaan in gabadha ama xaaska ay qabaan ay shaqaalo tahay, waxaa dhacayso in gabadhaas ay codsato furiin ama gurigii laga taga ama gurigii uu burburaba. qodobka afraad, ragga oo aan ka fikirin in gabadha tahay ruux insaan ah, dhibaatada hadday ka badatana dareemi karta quus. haddii dhibaatada aad ka badiso qofkani waa bini'aadan, wuxuu dareemayaa quus, wuxuu dareemayaa xanuun, wuxuu dareemayaa dhibaato, kadibna wuxuu go'aansanayaa inuu ka codsado furiin, taas oo sababta in gurigaasi uu burburo. qodobka shanaad wuxuu yahay ragga oo wejigabax kala kulma howlaha maamulka iyo maaraynta qoyska, kuna fashilma howlaha guud, taas oo ugu dambeyn sababta in gurigaasi uu burburo. dumarku maxay u baahan yihiin? dumarku waxyaabaha ay u baahan yihiin ee gurigaasi uu ku badbaadi karo maxay tahay? kow, dumarku waxay u baahan yihiin in la dareensiiyo in uu guriga yahay gurigooda iyagana ay leeyihiin. labo, dumarku waxay u baahan yihiin in hawsha guriga lala qabto oo aan lagu fiirsan keligoodana loo dayin. saddex, waxay u baahan yihiin in ay helaan nasiino jir iyo maskax ahaanba, iyo in ay helaan jawi bedel oo fiican ama jawi bedel oo diiran. afar, waxay u baahan yihiin in lala tashado inta aan go'aan la gaarin, in lagu tixgeliyo go'aankooda, iyo in ay ka qayb noqdaan talada guud ee gurigaas. shan, dumarku waxay u baahan yihiin in ay helaan waqti ku filan ay ku istareexaan, ay ku dareemi karaan nafis. lix, ugu dambeyn dumarku waxay rabaan naxariis guud oo ay dadku la qabaan, iyo mid gaara oo ay adiga kaa helaan. si gaar ahna ugu naxariiso xaaskaaga. haddii intaas ay dhacdo ama aad samayso, waxaa halkaasi ka bixi doona in gurigaasi lagu kala tago ama uu burburo. qodobadaas waa qodobada dumarka ku sababa ama ku riixa in ay dalbadaan furiin.